magaalada ku caan baxday tiknoolajiyadda magaalada ay ka soo farcameen dhammaan waxyaabaha la xiriira tiknoolajiyadda ee kombiyuutarada waxayna caan ku tahay magaca Home of Technology Silicon Valley magaalada ku taala waqooyiga gobolka California waxaana ka soo farcamay oo lagu curiyay dhammaan tiknoolajiyadda aan maanta isticmaalno waxayna hooy u tahay oo xarumahooda ay ku yaalaan كمباني والبا oo la xiriira tiknoolajiyad ha ahaato shirkadda Meta sida Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Microsoft, shirkadda Apple iyo dhammaan boqolaalka shirkadood ee hoostaga tiknoolajiyadda magaaladan waa magaaladii ugu horeysay oo ka bilaabay shaqadiisa Elon Musk kadib markuu jaamacad ka soo dhameeyay wadanka Canada wuxuuna ku curiyay oo ku bilaabay ganacsiyadiisa kala duwanaa sida shirkaddii PayPal sidoo kalena wuxuu ku aasaasay shirkadda caanka ah ee SpaceX. I really want to work on new technology, so I want to get to Silicon Valley. You know, which when I was growing up, Silicon Valley seemed like some sort of mythical place. Steve Jobs milkiilaha shirkadda Apple asagana meeshan ayuu ka bilaabay ganacsigiisa. sidoo kale asagana Bill Gates meeshan ayuu ku aasaasay shirkadda Microsoft haddaba magaaladan waxaa ku yaalo dhammaan xafiisyada shirkadahaas shirkadda Google, YouTube, Apple dhammaan wax walba oo la xiriira tiknoolajiyadda meeshan ayaa hooy u ah Silicon Valley waxay noqotay meel Americanka ilaashadaan kuna faanaan una adeegsadaan hub ay kula dagaalamayaan wadamada ay ku xifaaltamayaan dunida sida Ruushka iyo China. Representative Nancy Pelosi is in Taiwan tonight. China is already responding. Lead the world in future industries, protect our national security. We're in the middle of one of the most fundamental changes in the character of war in the history of mankind. Mareykankan waxay ka hirgeliyeen wadanka Taiwan magaalo sidaan oo kale ah oo ayadana lagu magacaabo Silicon Valley ujeedka laga leeyahay waa in lagu la dagaalamo tiknoolajiyadda wadanka China. Silicon Valley lagu aasaasay wadanka Taiwan waxay noqon doontaa hub oo Mareykanka kula dagaalamayo wadanka China. hubkaasna ma ahan kii qoriga ahaa ee wax lagu dilayay ee waa dagaalka tiknoolajiyadda ee maanta dunida ay ku faanayso. macnaha erayga silicon waxa laga keenay ama uu ka turjumayaa chemistry-ga marka la joogo atomic element number 14 haddaba magaaladan Silicon Valley oo cabsi weyn ka muujinayso ama ka qabto shirkadda TikTok muuqaal faahfaahsan ayaan ka sameyn doonaa waxaana soo dhigi doonaa YouTube-kayga iyo Facebook page-kayga.